madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ah madaxweynaha dawladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha dawladda Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan ayaa waxay shir madaxeed wada tashi ah isugu yimaadeen magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. Shirka ayaa si rasmi ah u furmay 12 bisha Luulyo socdayna ilaa 12 Luulyo 2020. ugu horeyn shirku wuxuu uga mahadcelinayaa dawladda iyo shacabka Galmudug soo dhaweynta iyo martigelinta shirka wada tashiga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka. madaxda dawladaha ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo xoojinta geedi socodka dhismaha dawladnimada Soomaaliya. dood iyo wada xaajood dheer oo shirku ka yeeshay arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ka soo baxay in la xoojiyo iskaashiga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. in doorashada waa qodobka labaad, in doorashada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan imaan wax muddo kordhin xileed ah. 3 sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda. sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee doorashada dalka ee 2020-2021. shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. shirku wuxuu u mahadcelinayaa taageerada beesha caalamku u mahadcelinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dawladnimada Soomaaliya. waad mahadsantihiin.